magaalada Hargeysa waa caasimadda Somaliland magaalada ayaa waxa ku nool bulsho badan haddaba dadka ku nool magaalada ayaa waxa kamid ah in badan oo bilaahooya kuwaas oo haysan meelaha ay ka galaan dhaxanta roobka iyo cadceeda marka laga reebo meelo gaar ah oo ay ka dugsadaan bartamaha magaalada Hargeysa warbixintan oo ku eegi doono maxay la kulmaan dumarka aan haysan hoyga ee ku nool darbiyada iyo meelaha dooxa ayaa waxaan la kulanay dumar badan oo idaadoodu kala duwan tahay haddaba qaar kamid ah dumarkaasi oo ogolaaday SABTV in wax ka weydiiyo xaaladooda mid kamid ah haweenkan la kulanay ayaa waxay haysataa 7 caruur ah taasi oo darbiga la seexatay caruurteeda waxyaabaha ku kalifay iyo sida ay u maareyso nolosheeda iyo caruurteeda waa tan iyadoo ka sheekaynaysa ana dhalay xaq ma ku dhalan ninkii dhalan uu iga daayiga dibadda waan seexdaa dhulkaan u dawrsadaa hay waan dhibaataysanay gideerkan oo seexdaa dibadda aad seexanayso waxa dhibaato ka dhigay jir badan baa igala kulma dhibaato badan baa iyo dhaxan wax kasta igala kulma hay kan kaliya ka wada dhalinta meel laba marka abuud caruurta way dayaco iga tageen labadu way joogaan gideerkan waan seexanaa ku joognaa hotelka hoostiisa dhibaato badan silciya muruga dayciyalka dayacoog iyo gaajiyo wax kasta iyo dhibaataan ku qabaa habeenkii dhaxanta ciyaalkii oo wax kasta waan ku qabaa waxaan ka hoos galaa meelaha yaree sadaas la dhisay aan ka hoos galaa waxa kale oo jira habladaadoodu aad u yar tahay kuwaas oo aan haysanin hooy aabba iyo hooyo daryeela hablaha oo inuu ognahay xaaladooda ayaa iyaga waxa u dheer darbi jiifnimo daryeel waalid la'aan waxbarasho la'aan iyo hooy la'aan halkan aad ku dhalatay gurigiinu waa halkee gidaarkaan seexanay seexataa maxaa dhibaato ka soo gaadhaba maxaa ka soo gaadha waxalba maxaa kamid ah dad xasuusato oo kale adigoo way dilaan marka waxay ku leedahay qasab igu kaxeeyo arrintan ayaan waxaan wax ka weydiinay garyaqaan guuleed dafac oo u dooda xuquuqul insaanka iyo yaryar badankooda u badan daayarta ee dabajiifka dhibaato fara badan baa haysata waxay u dayacan yihiin dhibaatooyin xoog badan oo nololeed bulsho dib badan baa iyagana loo geystaa haday garaacid tahay qaarkood baa maagtay la kufsadaa dhibaatooyin culus oo nololeed oo aad iyo aad u adag baa haysata waana dadka ugu dan yartay ugu yar ee ugu nugul ee ugu dhibto badan in loo doodo wax loo qabto oo la taageerana waa waajib saaran waan arkaa gaabis fara badan baa halka ka jira gaabiska faraha badan ee ka jira udoodislaantooduna wuxuu qayb ka yahay dhibaatooyinka faraha badan ee Soomaaliland ka jira ee dadku marba meel ay awood saarayaan meelaha qaar koodna ay ka gaabinayaan waxa cid walba ku dhiirigelinaya kamid tahay dadka xuquuqsanka u doodo shacabka reer Soomaaliland dadka wax haystay tijaarta iyo ummadda samafalka ah oo dhammaan iska kaashadaan sidii hablaha yaryar loogu heli lahaa meelo lagu daryeelo oo guriyaa oo iyagana wax lagu baro laguna dhaqan celiyo in ummadda hadba kuwiina ugu dan yartay ugu liita ee ugu nuguleenu kaalmeynaana waa waajib diinooyina saaran sakaadka ku baxaya sadaqada ku baxaysa ee qofka gacan qabtaana wax uu ka faa'iideeyo ummadiisina wax uu uga taraya marka runtii cidii hadal wax kaga tartan karta cidii abaab wax ka tari karta cidii lacag u soo ururin karta cidii kale taageero kale ka geysan karta waxaan ku dhiirigelinayaa arrinka wax laga qabto canaanta guud ee wax qabasho la'aantooda oo runtii mid aad iyo aad u jirta oo dadka dhan saaran waajibka koowaad ee guudna marka koowaad wuxuu saaran yahay xukuumadda Soomaaliland oo dastuurka waajibka ka dhigayo in dadka bulshada intooda baylahsan iyada waajib ka saaran yahay daryeelkooda iyo wax qabashadooda arrintan ayaan waxa kale oo wax ka weydiinay wasiirka qoyska iyo shaqo-gelinta Marwahinda Jaamac Xirsigaani waa tan iyadoo ka sheekaynaysa waxyaabaha ay u qabtaan darbi jiifka waa arrin u baahan in bulsho ahaan loo wajaho arrintani kale markaanu hablaha soo ururino waxaanu keenaa habla yaryar labay noqdaan hablaha yaryar mid sidii noola joogta oo waalidkeed tiraahdo umaba taakalayo oo aybatii ka gacan taagato oo aanu iska hayno mid waalidku uu yiraahdo isiiya markay hagaagtay ee inantii ay wacnaato oo aanu ku daro dhibaatadana haysataa waxay tahay markaanu ku darno waalidkoodii waxaanu ka qabanaa haddana iyagoo suuqi jooga oo dib u jooga inta badan dadka dhaqamada leh waa dadka Itoobiyaanka ah ee inagu soo qaxay ayay u badan yihiin runtii waxay u diraan dawarsi bay u diraan hablaha yaryar markaanu wareysanay dawarsi baa loo diraayo waxa la yiraahdaa lacag 100,000 ka yar haddaan soo hooyo bay tiraahdaa ima waxay tiri 100,000 lacag ka yar haddaan hooyaday u keeno way idilaysaa sida aawadeed 100,000 marmar baanay ii buuxsameyn bay tiri gurigiina kuma noqon karo marka siday u badan yihiin caynkaas oo kale ayay guryahoodii kaga soo baxeen waxa jira qaar aan dawarsiba loo dirin oo reer Soomaaliland balse iyagu ka fududaaday reerkii dhalay sida aawadeed hablahaasi dib bay nooga soo dhacaan
xaaladda darbijiifnimada oo aan ahayn xaalad sahlan marka la eegayo rag iyo dumarba ayaa iyaga waxa u dheer tacadiyo joogta ah oo lagula kaco taasi oo aanay ka xadidin da'doodu. Hodan Siciid, Saab TV, magaalada Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo e-Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.